adkeynta amniga dalka, dardargelinta gurmadka abaaraha, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo diyaarinta hanaanka ugu wanaagsan ee u dhacayso xil wareejinta ayaa maanta looga hadlay kulanka ugu horeeyay ee xubnaha cusub ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kadib markii maalintii shalay ahayd oo codka kalsoonida siiyeen golaha shacabka Soomaaliya. shirka golaha wasiirada uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa warbixino looga dhageystay dhammaan golaha wasiirada taasoo la xiriirta qaabka ay u wajahayaan howlaha horyaala si looga turjumo halku dhiga xukuumadda karti iyo hufnaan. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada faray inay astaan wanaagsan u noqdaan dadka Soomaaliyeed si loola dagaalamo musuqmaasuqana looga baahan yahay inay soo bandhigaan oo ay saxiixaan hantidooda gaarka ah si hadhow loogula xisaabtamo. wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo warbaahinta la hadlay shirka golaha wasiirada kadib ayaa sheegay in xukuumaddu ay diyaarinayso qorshe cusub oo lagu dejinayo amniga dalka. ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu adkeeyay golaha wasiirada in shacabku naga sugayo sidii dalkan loo sameeyo bixin lahaa isla markaana la yimaado howlkar hufnaan iyo shaqo maaragtay ummaddu kalsooni ay ku hesho. sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay in wasiiradu ay tusaale u noqdaan shacabka Soomaaliyeed bacdama ay hogaaminayaan wasaaradihii qaranka. sidoo kale wasiirada waxa laga codsaday inay soo buuxiyaan foomam ay ku qoran yihiin maaragtay dokumentiyo muhiim ah oo ka mid tahay anshaxa iyo sidii u shaqeyn lahayn si daacadnimo ah, midnimo ah iyo aamin ah. sidoo kale waxa laga codsaday wasiiradu inay soo saxiixaan warqad ay ku cadeynayaan hantidooda gaarka ay leeyihiin si hadhow isla xisaabtan u yimaado markii loo baahdo. sidoo kale arrimaha laga hadlay waxay ahayd gargaarka abaaraha oo ra'iisul wasaaruhu sheegay in wasaarad gaar ah loo sameeyay tan oo tusinaysa ahmiyadda gaarka ee xukuumadda siinayso arrimaha gargaarka lagana codsaday hay'adaha caalamka iyo hay'adaha maxalliga iyo dhammaan hay'adaha iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka howlgala arrimahan inay si dhow iyo si gaar ah ula shaqeeyaan wasaaraddaas iyada ah si shacabka looga saaro ka jira. arrimaha kale amniga ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in wadankan arrimaha ugu horeeya ay tahay amniga hadaan wax laga qabanna aan la heli karin maaragtay gargaarka aan loo gaari karin shacabka. amniga hadaan wax laga qabanna aan wax laga qaban karin musuqmaasuqa. amniga hadaan wax laga qabanina xasiloonidii iyo nabadeyntii aysan imaan karin. xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaraha ka yahay Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa horyaala oo laga sugayaa in dalkan ay gaarsiiso horumar isla markaana ay ka saarto marxaladda uu hadda ku sugan yahay iyo inay shacabka Soomaaliyeed u rumayso himiladooda ah inay gaaraan isku filnaansho ama heer u dhigma. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.